السلام عليكم هرت قف والبو إن سلام يا إمد كلات محارة مانت إن هذا الكوبان كده شيء مع المهن فيسبوك ميل والبقصة الله هاي رجع الصومالي رومانتيك معهم قبلي صومالي ذوي هلاوين من أشاني بيجورسدين هرت قف والبو قف كدوق يساعدو كدين وجورسين كرا لكن ويقروح بدن تقف كوجود قن وكوجود دين وكوجود دلائنا جورسدين لكن سه رومانت هذا أنا قد هنرجع الصومالي رومانتيك معهم رجينا أنا دهان gabdhihii way halaaween ajaanib ay gursadeen oo saas la isku eeday aflagaada social media la isku dhaafsado ma qurux badno laakiin cala sharciyada halkee ka jirtaa ani ma dhahay rag Soomaalida romantic ma ahan waayo aabaheeya rag Soomaalida ku jiro walaalkeeya ku jiro ay soo sheeg bir qofkeega ku jiri kara ma fahantay laakiin si cala sharciyada halkee ka jirtaa ee gabdhaha Soomaalida ee ajaanibta u cararay macnaha ajaanibta romantic ay yihiin kuma san dhalan laakiin waa la baray qof romantic nimada iyo nolosha aqoonteeda ku dhashta ma jirto qof walba waa la baray sidee loo baray sidee macnaha rag kale tii ajaanibta way ay romantic u noqdeen rag Soomaalida ay u noqon waayeen ani hada fikrada Swedish fikrad ay soo baxday waxay tahay qof rag wadamada horumar oo kale ama dadkan kale oo nabad iyo waxbarashada dhameystiran haystaan xiisad walba iskuulka ay ka dhigtaa waxa ku jirta xiisad la dhahayo nolosha oo qofka sidoo noloshiisa qof ula qaadan lahaa lagu baro sidoo qofkiisa farxad u siin lahaa lagu baro qofka ragga nimanka raggan waxa u dhiga macallin nin ah gabdhahan waxa u dhiga macallimad naag ah marka Soomaaliya way iska burbursan tahay waa naqaan waxbarashadeedana waa wada ogsoonahay laakiin se dad qofkii hadii aan uusan waxbarasho soo helin uusan soo baran nolosha waxay tahay uusan ku dhalanin sidoo romantic ku noqon kara ma noqon karo romantic mana suurtagelayso inuu romantic noqdo laakiin se calashan dadkan wadamadan kale tii imaadeen ee waxbarashada heleen way wada arkeen xiisad walba iskuul lagu qaato waxa ku jirto xiisad la dhaho nolosha ee macnaha oo ku saabsan sida gabadhan ee ninka farxad u siisan lahayd ninkana soo gabadhiis farxad u siisan lahaa marka ragga Soomaalida hadaysan gabadhi Soomaaliyeed soo helin xiisadaas aysan soo qaadanin qofkii ragga una soo qaadanin sida tahana nolosha aan lagu wada qanacsanaan karno aan la isku faraxsaneen muxuu xalka noqon karaa xalka ma noqon karo inay gabdhihi intay TV-da istaagaan ee masaajidada iska diiwaan geliya ay dhahaan horta taas aad wax laga dhintay laakiin way dhacday inay dhahaan niman ajaanib ah rabna Soomaali ma rabno ay gabdhihi nimankiina ay dhahaan ay commenti oo ku caawiyaan ay dhahaan waa naagaha leesan waa naaga saana macna mar haday wixii soo bixeen wax 10 qof ka badan haday isku raacaan waa wax jira been ma noqon kara wax 10 qof ka badan ay isku raacday soo haday gabdhihi bar ay dhahayaan rag Soomaalida romantic ma ahan ragina isku ay commentiga ku caawinayaan ku aflagaadeena ay dhahayaan gabdhihi ay saane noqdeen gabdhihi way halaabeen xalkeen ina macna xalka sidoo ku jira ina fiirin gabdhahaasina eesaas ku jira waa qof jecel ma jirto qof aan kugu dhaqanahayn arta diin waa muhiim laakiin qof aan kugu dhaqanayn oo kugu luqadeen oo bir sidoo kugu noqon doona aad nogeen caruurtaada birisay ka noqon doonta aad nogeen arta ma qurux badna ina guursatid laakiin danta ku kaliftay idinkana maxaa macna sabab u ah in la aflagaadeeyo wali ma arkin wiil Soomaaliyeed oo TV inta soo istaaga dhahayo gabadha Soomaaliyeed romantic ma ahan waxay kaaga muuqdaan anaga wax barasho helin hadana inaad dadaalno oo macna ragani u wanaagsan laakiin ragi aysan is ogeenba waxyaabo badan waa ogsoona laakiin xalka muxuu noqon karaa hadda wixii dhaca waa dhacaynba laakiin mustaqbalka dhow ee soo socda ani horta waxa dhihi lahaa orta xiis Soomaaliya kuwa joogo oo waxbarashada ku jira hada inta iskuulada la isku wada raaco jadwal loo wada sameeyo xiisad la dhahayo xiisada nolosha lagu soo daro si qofka nolosha loo baro gabdhahana qof macallimad ay u dhigto macallimadina qof dumar ay u dhigto waayo nolosha laguma dhashtay waa la bartay everything waa la bartaa wax lagu dhashto ma jirto dadka wax walba yaqaan aragtan waa la soo bartay so dadka waaweyn hadana macna heesato aan waxbarashada ka gaarina isku day koorsooyin waxbarashada ina qaadatay aan ragga kaligood aad ma saara laakiin gabar iyo wiil waa la hadlaaya nolosha macna ma ahan nolosha waxyaabo badan waxa jirta labada qof ay isku wadanaysa waayo qof complete oo dhameystiran ma jirto qofka kala duxuu ku qaataa so macna nolosha saa u wada share gareyn kartaan ugu macquulsan soo barti koorsooyin yar soo qaat wadamada ka joogtiin ku mustaqbalka hadda soo baxay yaryarna xiisadaas iskuulada loogu soo diro taasi that's my idea ma lahayo taas kali waa fikradeeda ma fahanteen so
يا حويان لس أفلقادين متى كليت هذا فكرة هذا كهشة welcome هذا ذنك هلينا إما أفلقادين كرت فيديو والبنوك شيء خفي أفلقادين كرت مالهن وده وحكودها يعني السو أسترنانت الصومالي وحاول تقان I don't know والله ما أقون كري وايو الله ما حد يكون جوالي يكون دبولية ميل كافي ذنشرنا ولو سي أفلقادين أو أفلقاسي شيء جاي أنا وحدي لها قفك فكرة ديسة معنا وكسو هرجيسن كرتا لك شخصيتي اسمها أفلقادين كرسيد لكن وحو كهلا وكسو هرجيسن كرتا وما سنتي ضدك مر والبا إنبوكس كما سجد يقول صدره يقولها فكرة هذا وناكسن نقول صوبيري حاليا مر والبا وما سنتي ندير قلنتينا وحي لح قروح بدن ويسرها يعني فكرة إنها قد بسيط وقروح بدنك واسيب قد بنتونا سقو رجو ما لها إذن كان دلالة دمرو إذن كان هدا رج صوماليات أفلقاديسان أبها أفلقاديس قف كافق ما أفلقادين أو والالك أفلقاديس oo wiilkaaga bari Soomaaliga noqon doona aflagaade soo iska daay qof walba sidoo noloshiisa wax ugu qabsan karo u maareysan karo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.